in wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka ay doonayso in heshiis la gasho laba shirkadood heshiiskaas oo la xiriira ruqsadsiin ay ku bixinayso ruqsad baaris shidaal lagu sameeyo. dowladda Soomaaliya waxay bixisay faahfaahin ku aadan shuruucdii loo maray hanaankaasi qaswadayaal Mareykan ah oo qarbuday guryaha xildhibaano ay ka mid tahay afeenka aqalka Koongareeska waddankaasi. dowladda Hindina waxay ogolaatay in si degdeg ah loo isticmaali karo laba talaal oo ah kuwa fayraska corona magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa lagu dilay wadaad Soomaaliya. waxa kale oo maqli doontaan waxaad moodaa hadda waqti xaadirkan aanu ku noolahay xeryaha qaxootiyada Dadaab in kaamkii aad moodaa in la soo duuduubayo oo waxa hadda ugu dambeeyay in hayso waxa weeye goobihii caafimaadka oo daawooyinka ka qaadan jiray oo qayb ka mid ah maaragtay nalaga xiray. waa xeryaha qaxootiga Dadaab oo dadku ay ka cabanayaan xarumo caafimaad oo ay sheegeen in albaabada la isugu dhuftay wararka ciyaaraha iyo barnaamijka mawjadaha baraaruga oo maanta kala maqashaan. barnaamijku waxa si wada jira u soo saaray Kawthar Maxamed iyo Axmed Mursal waxaan idin la socodsiin doonaa haddii ay beedmaanigu Bashir Maxamed Caata say markii hore waxaanu ka horeynaynaa warkii caalamka iyo Fartoon Ismaaciil. mahadsanid Bashir. maamulaha dawooyinka dalka Hindiya ayaa si rasmi ah u ansixiyay in si degdeg ah loo isticmaalo laba talaal oo coronavirus ah kuwaasi oo mid ka mid ah ay soo saareen jaamacadda Oxford iyo shirkadda dawada sameeysa ee AstraZeneca iyo mid kale oo ay sameysay shirkadda Hindiya laga leeyahay oo lagu magacaabo Bharat Biotech. Hindiya ayaa qorsheynaysa in wajiga koowaad ee howlgalkeeda talaalka ay ku talaasho 300 oo milyan oo qof. xisbiga ugu weyn mucaaradka Hindiya ee Congress Party ayaa ka digay in go'aanka dawladda ay ku ansixisay isticmaalka degdega ah ee talaalka coronavirus uu ahaa mid lagu degdegay oo ay khatar ka dhalan karto. Masar ayaa iyadana ansixisay talaal coronavirus oo ay soo saartay shirkadda weyn ee dawooyinka sameysay laga leeyahay dalka Shiinaha ee Sinopharm. wasaaradda caafimaadka Masar ayaa sheegtay in soo saarista talaalkan ay bilaaban doonto dhamaadka bishan. kooxda ugu horeeya ee la siiyana ay noqon doonaan shaqaalaha caafimaadka. guud ahaan in ka badan 440,000 oo kiisas ah ayaa laga diiwaan geliyay dalkaasi iyadoo in ka yar 8,000 ay u dhinteen cudurka. saraakiisha dalka Masar ayaa sheegay in bishan ay helayaan talaalka ay sameeyeen shirkadda dawada sameeysa ee AstraZeneca ama jaamacadda Oxford iyadoo sidoo kale ayaa wada xaajood u socdaan shirkadda Pfizer. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay in laga yaabo in xayiraado adag oo coronavirus ah lagu soo rogo qaybo badan oo England ka tirsan isagoo sheegay in xaaladda uu dalkaasi kala kulmay kiisaska cusub ay tahay mid aad u adag. ma uusan carabaabin haddii xayiraadaha la soo rogi doono ay yihiin kuwa adag oo nooca heerka shanaad ah. Mr Johnson ayaa BBC-da u sheegay in uu rajaynayo in malaayiin xirmo oo talaalka coronavirus uu dalkaasi heli doono 3 bilood ee soo socota. waxa uu sheegay in ka badan kala bar xirmooyinka talaalka Oxford iyo AstraZeneca ee la isticmaali doono wixii loo gaaro Isniinta biri ah. waxa uu noqon doonaa talaalkii labaad ee ka dhanka ah coronavirus ee laga isticmaalo gudaha Britain. waxa caafimaadka ayaa doonaya in ay dardargeliyaan tirada dadka qaadanaya xirmada ugu horeysa ee talaalka iyagoo dib u dhigaya talaalka labaad. Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa ka digay in xayiraadaha adag ee coronavirus laga yaabo in laga hirgeliyo meelo badan oo UK ah isagoona sheegay in xaaladda ay wajahayeen ee xanuunkan cusub ay aad u adkeed. We've got to be realistic about the pace in which this waa in aynu xaqiiqda wajahnaa oo aynu eegnaa sida viruska noocan cusub uu u faafay imikana uu faafayo. waa in sidoo kale aynu wax iska weydiinaa saameynta uu ku yeelanayo hay'adda qaran ee caafimaadka inoo qaabilsan ee NHS. waana in la muujiyaa ahmiyadda ay noo leedahay xilligan oo uu jiro viruska corona. and we've got to be humble in the face of this virus. madaxweyne ku-xigeenka Philippines Leni Robredo ayaa ku baaqday in baaritaan la sameeyo kadib markii kooxda ilaalada madaxweynaha ay qaateen talaalo coronavirus oo sharci darro ah. Miss Robredo ayaa ku baaqday daahfurnaan ku saabsan cidda ansixisay barnaamijka oo sida la sheegay bilowgii bishii September iyada oo la isticmaalayo talaal uu sameeyay Shiinaha. Philippines ayaan ogolaanin wax talaal ah iyagoona mamnuucay in talaal la soo geliyo lagana qaybiyo dalka
dalka. Madaxweynaha Filibiin ayaa xaqiijiyay in la talaalay qaar ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah, ma jirin wax sharaxaad ah oo ku saabsan sida lagu helay talaalkaasi. ugu dambeynna isku duwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ayaa ka digay in dhibaatada ka taagan dabka kacay xero qaxooti oo ku taala Bosnia ay sii socon karto maalmo ama xitaa toddobaadyo. Peter van der ayaa BBC-da u sheegay in boqolaal muhaajiriin ah oo ku jira xerada Lipa aysan haysan biyo iyo koronto ayna seexdaan qabowga banaanka ama basaska dhexdooda. Mr van der oo maanta lagu wado in uu booqdo xerada ayaa sheegay in dhibaatada ay uga sii dartay ismariwaa siyaasadeed ee ka dhashay xero kale oo loo raro qaxootigaas. Waxa uu sheegay in dhaqaale ay jiri karaan balse aan weli wax heshiis ah la gaarin. waxaa jira ilaa 8,000 oo muhaajiriin ah oo jooga Bosnia xilligan. 6,000 oo ka mid ahna waxay ku jiraan hooy hagaagsan, balse qiyaastii 2,500 ayaanan haysan hooy hagaagsan oo ay ku hirtaan. waxaa diyaarsan kharashaadkii loogu talagalay in hooy loogu sameeyo 8,500 ee qof. hase yeeshee waxa kaliya ee naga maqan ayaa ah in xal siyaasadeed laga gaaro goobta saxda ah ee hooy looga dhisi lahaa soo galootigan. codkaasina waxa uu dambeeyay warkii caalamka oo inala socodsiinaysay Fartuun Ismaaciil. halkaad kala socoteen dhageystayaal waa BBC. وهاجاك دقيستيل أنا كهر مرنا مدوق مشرحين تمدحون النماية الصومالية يا ولا كموجي هشيس دنك الشدال باريستا يقوديستا ويدولة الصومالية الشجن إن لقى ليس شركة أجنبية والقراء لو يسوس على مرشحين تاي كوشجن إن هنان كل عمر يارنتن أنا صحاهين قارن حل جنوا الشجن ذلك يكوسف والله هذا الدور شو haddaba walaaca qabaan musharaxiintaasi waxa uu ku qatamayaan goorsi oo raysay kala sheekaystay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo kamid ah midowga murashaxiinta oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu warramay. walaaca noo muuqda wuxuu yahay xog waxaan helnay in wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka ay doonayso in heshiis la gasho laba shirkadood heshiiskaas oo la xiriira ruqsadsiin ay ku bixinayso ruqsad baaris shidaal lagu sameeyo dalka meelo kamid ah looga sameeyo arintaas awalwal iyo walaac weyn aan ka qabnaa taasaan ku soo saarnay qoraalka aan la wadaagnay dadka Soomaaliyeed iyo kambaniyadii arintan ay khuseysay inta sharciyada shidaalka iyo hanaankiisa ma dhameystirna oo sida la socoto sharciga wadaaga khayraadka wali laga ma heshiinin sharciga canshuuraha la xiriira wixii ka soo baxa khayraadka dabiiciga ah wali ma dhameystirna sharciga iibka shidaalka ma dhameystirna marka sharciyadii la xiriiray shidaalka hay'adda waa la socotaa khayraadka Soomaaliyeed xukuumadii xilgaarsiinta ra'iisul ku-xigeenka oo sii hayay yaa lagu ansixiyo sharci darray ahayd oo ma haysan xukuumaddaas kalsoonida baarlamaanka marka waxa dhan ayaa horta ku sharci darro ku dhisan labo waxaan shaki weyn ka qabnaa xilliga lagu soo aadiyay iyadoo dhowr iyo 40 maalin ka hasan tahay xilka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la yiraahdo shirkado shidaal yaa heshiis la gelayaa waqtiga aad u kooban oo ujeeda inta ka dhima muddaxileedkii madaxweynaha iyo hay'adaha dastuuriga baarlamaankii TCna ay dhamaatay marka waxaan u aragnaa in maslaxa khaas ah oo la doorashada lagu gelayo hanti laga raadinayo kambaniyadaas inay tahay marka anaga walwalkaas aan qabnaa waana ka digaynaa madaxweynahana qoraal aan u dirnay kambaniyada arintaas raba inay galaan qoraal aan u dirnay inta qaybsay khayraadka dalka waatii hore uga heshiiyeen dowladda federaalka maamul goboleedyada shirkii 2018 ka dhacay Baydhabo marka maxaa ku jaban in wixii lagu heshiiyay la soo saaro mid kale se dowladda imika 32 maalmood ayaa u hartay hadii se ay saacad u haraan sooyada dalka mas'uulka ma ahna heshiis ma gali karto heshiiska horta si kumeel gaar ayaa loo heshiiyay fulintiisii socoto dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo kuwa kale ka muujiyay walaac xoog badan oo dib ula noqday hataa initial agreement-ga ama heshiiskii bilowga ahaa waxa la isku hayaa waxay tahay heshiiska yaa gelaya heshiiska anaga waxaan rabnaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ama dowlad goboleedyada qaarkood ama dadka u daneynaya maslaxadda Soomaalida heshiiska inuu baarlamaanka Soomaaliyeed gelitaankiisa leeyahay ta kale waxay dhaawac weyn ku tahay arrimihii deyn cafinta oo socday dhaawac weyn ku tahay oo saa la socota IMF World Bank waxaan la yiraahdo extractive industrial ayay naftiisa sharcigaas oo la ansixinin kii iibgeynta oo la ansixinin wixii dhan oo sharci la xiriira hawshan oo la ansixinin yaa la rabaa in la galo xukuumadda iyadoo intaas ay ansixinay muddo yar u dhiman tahayna waxa ay saxiixaysa way iska muuqataa in kickbacks wixii la dhigi jiray kambaniyadaas lacag inta laga qaato
loogu daneeyo ololaha doorashada ayay tahay waxaan diidanahay oo maslaxadii ummadda Soomaaliyeed halkaas si cad anagu u jeedna loo bilaqayso waxaan diidanahay arrimaha shidaalka muddo ay dawladda ka soo shaqeynaysay oo shirar badan ayaa lagu qabtay dalka dibadiisa hanaan muddo socdayna uu ahaa marka imika oo hooshii gabagaba tahay inaad dhalishaan maxaa warkiina loo fasirin karaa waxaan rabnaa annaga daahfurnaan shidaalka Soomaali in la soo baxo ma diidanin laakiin waxaan rabnaa wixii lagu heshiiyay in la fuliyo walaalo heshiisyada laga maarmaanka u ah in la galo qandaraas ku saabsan shidaal qodis hal la dhameystiro way doodeen baarlamaanka jiro aqal sare jiro goboleedyada jiro dawlad federaalaha jiro waxaas oo dhan oo heshiis ku ah yaa loo baahan yahay wixii Soomaali loogu danaynayo in si banaan cad loo keeno Soomaali waxay tiraa xalaal barqacada la qasha laakiin heshiisyo la soo galay shirkado si hoose loo la galay oo la doonayo xilliga doorashada in lagu danaysto waayo waxaan diidanahay ayadoo maantii xukuumadda iyo hay'adaha sharci dejinta oo dhamaatay xukuumaddan ay bili wax yar ka haasan tahay heshiiska la galay walaalo muxuu yahay dalkan doorasho hal la qabtaan ku haynaho la taaganahay markay soo baxdo baarlamaan iyo aqal sare iyo madaxweyne iyo xukuumad sharci ah oo mandate buuxo haysta kuwaas gali kara heshiisyadaas cabdiraxmaan cabshukuur in shidaalka waddanka la soo saaro oo dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo kheyraadka maxaa ku jaban ku weydiiyay mid kale se wixiinu soo lama fasirin karo talaabo walba oo qaado dawladda aan kula dhigno in Soomaaliya la suuq geeyo inuu shidaal ku jiro dhib kuma qabno hadii Koonfur Afrika lagu qabto ama hadii tax Mareykan lagu qabto waxaan ka hadlaynaa waxa waaye markii heshiis la gelayo waa in la maraa wixii la dhigtay in lagu heshiiyo in la sameeyo war waxaan leenahay waxayna wacdi anaga shuruucda iyo qaabkii iyo hay'adihii lagu heshiiyay in markii shidaal qandaraaskiisa la bixinayo la soo maro hal la soo maro intii la soo maro shuruudii hal la buuxiyo kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdishukuur oo kamid ah midowga murashaxiinta oo qadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramayay haddaba dhegeystayaal ma ay suurtagelin in eedeymahaasi aynu wax ka weydiino mas'uuliyiinta dowladda federaalka hase yeeshee wasiirka batroolka cabdirashiid maxamed oo mar sii horeysay la hadlay warbaahinta dowladda ayaa faahfaahin ka bixiyay wadada loo maray sharciga batroolka annaga wasaarad ahaan waxaan ku dadaalnay inaan dib u eegis ku sameeyno sharciga golahii wasiiradan marsiinay 2017 bishii Oktoobar isla markiina waxa loo gudbiyay golaha shacabka inta uu yaalay waxa ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay heshiis loo yaqaan heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaaga kheyraadka Soomaaliya oo ay wada saxiixdeen dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir sharciga baarlamaanka jiilay heshiiskaas u noqday muxuu ahaa sal oo lagu saleeyay wuxuu cadeynay heshiiskaas yaa kheyraadka iska leh sidee loo wadaagay haddii soo baxo yaa maamuli doono intaas heshiiskaas ka jawaabay heshiiskaas markii lagu saleeyay sharcigi golaha shacabka wuxuu ansixiyay bishii May 2019 waxa marka shuruucda markii golaha shacabka ka soo gudubto waxa markaas waxa loo gudbiyaa aqalka sare wuxuu haystay muddo ku dhow 7 bilood oo uga shaqeynayay bishii January ee sanadkii la soo dhaafay 7deedii ayuu aqalka sarena ansixiyay sharciga batroolka Soomaaliya waxa uu dhimay marka oo kaliya in madaxweynaha uu saxiixo madaxweynahana wuxuu saxiixay bishii February sanadkii la soo dhaafay 8deedii 2020 kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka dowladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda isagoo faahfaahinaya wadada loo maray shuruucda ay batroolka waddanka markana dalka Mareykanka koox qaswadayaal ayaa qarbuday oo muraayadaha ka jijibiya guryaha ay degan yihiin afeenka aqalka sare waa aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka Nancy Pelosi oo ku yaala gobolka California iyo hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka sanadka xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell oo ku yaala Kentucky booliska Mareykanka oo ka hadlay arrintan ayaa waxay sheegeen in dadkan ay guryaha mas'uuliyiintaasi ku tureen walxa dhig leh iyo waliba sidoo kale madax wax loo ekeysiyay baa la yiri doofaarka arrintan ayaa ku soo aadaysay xilli aqalka Koongareeska waddanka ay ka taagan tahay dood la xiriirta inta ay leegtahay lacagaha ay tahay in la siiyo shacabka Mareykanka xilligan oo viruska corona faraban ku hay waddankaasi wararka umurtaasi la xiriira waxa isku soo ururiyo oo la socodsiinaya Axmed Mursal musawiro lagu aflagaadeynayo hogaamiyaha aqlabiyadda golaha sanadka ee Mareykanka Mitch McConnell ayaa gidaarada lagu xardhay gobolka Kentucky Koongareeska ayaa waxa ka dhex taagan ismariwa la xiriira taakulada loogu talagalay viruska aafada ah ee corona talaadadii ayaa golaha wakiiladu u codeeyeen in la kordhiyo dhaqaalaha halka mar la bixinayo ee ah $600 lana gaarsiiyo $2,000 aqalkaas oo ay u badan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa meel mariyay sharcigaas ayagoo gacan ka helayay in ka badan 40
xildhibaan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. hase yeeshee aqalka sanadka oo ay ku awood badan yihiin xisbiga jamhuuriga ayaanan ansixin lacagta la kordhiyey, inkasta oo baaq arrintaasi lagu taageerayo uu ka imaanayay madaxweyne Donald Trump. sabtidii ayaa guriga Mr. McConnell oo ku yaal magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ayaa lagu xirnay erayo ay ka mid ahaayeen away lacagtayadii iyo Mitch waxa uu leynayaa dadka saboolka ah. war qoraal ah oo uu soo saaray Mr. McConnell ayaa waxa uu ugu mahadceliyey dhammaan dadka gobolka Kentucky kuwaas oo ka qayb qaatay hanaankaas ay sida dimuqraadiga ah fikirkooda ugu muujinayeen. booliiska magaalada San Francisco ayaa mar ay baaritaan ku hayeen dhacdadii ka dhacday guriga Miss Pelosi waxa ay sheegeen in falalka qarbudaada ah iyo cabsida siyaasadeed aanay meelna uga jirin bulshadooda ayna arrintaasi tahay mid gooni ah. masawiro iyo erayo looga soo horjeedo Miss Pelosi ayaa lagu xardhay albaabka gurigeeda kuwaas oo markii dambe walax madow lagu daboolay. Miss Pelosi ayaanan weli wax hadal ah ka soo saarin arrinta. axmed mursal aad u mahadsan yahay. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. وهاجي dhegeystayaal waxay noo soo socdo warar la xiriira xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab balse markana dawladda Hindiya ayaa ogolaatay in si degdeg ah loo adeegsado laba talaal oo ah kuwa coronavirus. hay'adda dawladda dalka Hindiya u qaabilsan dawooyinka ayaa ogolaatay in gudaha wadankaasi lagu isticmaali karo dawooyinka talaalka ay sameyntiisa iska kaashadeen jaamacadda Oxford ee wadanka Britain iyo shirkadda dawooyinka sameeysa ee AstraZeneca. wararka ay BBC ka qortay umuurtaasi waxayna la socodsiinaysaa Kawthar Maxamed. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa talaabadan ugu yeeray mid aan ka soo laabasho lahayn. Hindiya waxay qorsheynaysaa in sanadkan gudihiisa ay talaal ka gaarsiiso ilaa 300 milyan oo qof. dalka Hindiya waa dalkii labaad ee diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa ee fayraska corona guud ahaan caalamka. in ka badan 10.3 milyan oo qof ayaa ilaa haatan la xaqiijiyay inay qabaan xanuunka waxaana u dhintay ilaa 150,000 oo qof. ansixintani ayaa waxay wadada u xaareysaa bilowga barnaamijkii ugu weynaa ee talaalka ee dunida oo dhan. shalay oo Sabti ahayd Hindiya waxay qabatay tababaro qaran oo in ka badan 90,000 oo qof oo hawlwadeenada caafimaadka ah loogu diyaarinayo maamulidda talaalka ee guud ahaan dalka halkaas oo ay ku nool yihiin ilaa 1.3 bilyan oo qof. Vijay Somani waa agaasimaha guud ee xakameeya dawooyinka ee dalka Hindiya maruu ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Delhi ayaa waxa uu yiri sida tan. After adequate examination kadib markii ay baaritaan ku filan samaysay hay'adda dhexe ee kontaroolsha tayada daawooyinka waxa ay hay'addu go'aansatay inay aqbasho tala soo jeedinta ay sameeyeen guddi xeeldheerayaal ah iyo macadka gacanta ku haya soo saarista talaalka AstraZeneca iyo talaalka kale ee Bharat Biotech kuwaas oo loo ansixiyay in si xadidan loogu adeegsado xaaladaha degdegga ah iyadoo ogolaanshaha talaalkaas ay damaanad qaadayso shirkadda daryeelka caafimaadka ee Kadila iyadoona hirgelinaysa wejiga saddexaad ee tijaabooyinka caafimaadka ee Hindiya. talaalka Oxford AstraZeneca ayaa lagu soo saarayaa gudaha dalka iyadoo ay soo saarayso shirkadda dawooyinka soo saartay ee dalka Hindiya ee Serum Institute taas oo sheegtay inay soo saarayso in ka badan 50 milyan oo xirmo oo talaal ah bishiiba. agaasimaha guud ee xakameeya dawooyinka ee Hindiya ayaa sheegay in labada shirkadood ee soo saaray talaalka ee Oxford AstraZeneca, Indian Farm iyo Bharat Biotech ay soo gudbiyeen macluumaad muujinaya in la eegay badqabka labada talaal lana adeegsan karo. Kawthar aad bay mahadsan tahay oo nala socodsiinaysa wararkaasi la xiriira talaalka ee dawladda Hindiya ogolaatay in lagu isticmaali karo gudaha wadankaasi. markana hogaamiyaasha shacabka ku nool xirada qaxootiga ee wadanka Kenya ayaa waxay wala xoogan ka muujinayaan inay wajahayaan hubanti la'aan dhinaca caafimaadka. arrintan ayaa timid kadib markii la xiriir qaar kamid ah xarumaha caafimaadka ay ka heli jireen adeegyada caafimaadka iyadoo hay'adihii maalgelinaya xarumahaas ay sheegeen in dhaqaale yari ay keentay arrintaasi. gudoomiye ku-xigeenka xirada Cabdullaahi Cismaan Xajaadan ayaa BBC-da u sheegay in hubanti la'aanta ay wajahayaan aanay ku koobnayn kaliya caafimaadka balse sidoo kale raashinka iyo waxbarashada ay halkaasi ku haysteen aanay hadda haatan sidii hore ahayn. Cabdullaahi Cismaan ayaa waxa uu ugu warramay qadka telefoonka ee Ifo.
qurbada waxaan nagu haya waxaa weeye annaga muddo 30 sano aan qaxootinahay burburkii dawladda Soomaaliya kadib 30 sano waxaan ku nooleen xeryaha qaxootiyada kaamka Dhadhaab waan iskaga ladnayn oo waxaan haysanay 4 waxyaabood oo aanu meeshan ku deganayn waxaan haysanay nabadgelyo raashin baan ku haysanay waxaan ku haysanay waxbarasho waxa afarayo aan ku haysanay daawo marka waxaad moodaa hadda waqti xaadirkan aanu ku noolahay xeryaha qaxootiyada Dhadhaab in kaamkii aad moodaa in la soo duuduubayo oo waxa hadda ugu dambeeyay in haysta waxa weeye goobihii caafimaadka oo daawooyinka ka qaadan jiray oo qayb kamid ah maaragtay nalaga xiray qaybta imika aad sheegaysaa la xiray waa tay marka qaybtii healthboosyada ee ay dadku daawooyinka ka qaadan jireen baa nalaga xiray 6 goobood iyo isbitaal baanu haysanay 6 goobood ee aan laba hore nalooga xiray labana hadda nalaga xiray laba bes aan lagu soo reebay laba bes iyo 70,000 oo ruux waxa weeye isma qaadan karto marka dhibaatooyinkaas aan hayaa isbitaaladii waaweynaa iyaga ka waran mase ku jiraan kuwa haatan albaabada la isugu dhuftay isbitaaladii waaweynaa waxa weeye waagi hore taba meesha guryo unbaa ka dhisnaa wax isbitaal hadda qalabaysan oo muhiim oo noo yaalay ma jirto hasa ahaatee waxa weeye dhalinyaradii wax baratay ee ka shaqeynaysay baa shaqadii yaa laga diray daawadii mar horena waa la dhimay haddana waa la sii gooyay meeshii daawo la'aan ah iyo iyadii xarumihii caafimaadka la sii yareeyay yaa isku kaana tagay ma garad xarumahan marka aad sheegaysay adeegyada caafimaad aad ka heli jirteen yaa marka hore maamulayay maxay satay marka sababta loo xiray ayagu dhaqaale daray ku sheegeen waxa maamulaya hay'ad la yiraahdo Red Cross waxa kor ka sii maamula hay'adan UNHCR marka waxa weeye dhaqaale daray ugu magac bixiyaan laakiin dhaqaale daradaas haba jirta qaabka loo maareeyay baanu saluugsanahay annagu ka mas'uuliyiin ahaan wax noo sheegay ma jiro wax nalagala tashadayna ma jiro yacnaha amar sidii amar military oo kale baan nala dul dhigay nalagama tashanin oo lama dhihin dhaqaale daraa jira seebaan waxaan ku maaraynaa nalama dhihin ka mas'uuliyiin ahaan wax nalaga weydiiyayna ma jirto marka waxaan ka war helnay in naloo yeedho oo la yiri labada health boss baan xitaa yaan xidhnay marka saameynta ka dhalanaysa bal ka waran waxa weeye waxay noqonaysaa marka meeshan wixii aan ku haysanay inaan weyno oo aan ka barakacnay iyo dantu kalifaysa oo maaragtay Soomaaliya aan nabad ahayn inaan ku noqonay dantu kalifaysa waxaan ognahay in inta badan wadamadii dhaqaalaha ku taageeri jiray hay'adaha gargaarka ay haatan la daala dhacayaan dhaqaale xumo marka taasi miyaanay garahayn hadda waxa laga garaabi lahaa waxa weeye in nala tashaday ahayd oo la yiraahdo maxaa idin daran dhaqaale la'aan baa jirta sideen baan kaga baxnaa laba goob caafimaad yaan ma aragtay soo reebayna labada sideeba ku fiican sidoo kale dadkii ka shaqeynayay sideen iyagana ma aragtay aan ku kala reebnaa maanta waqti xaadirkan aan joogno dunidu way horumartay tashi baa wax lagu waxaya laakiin amar baa nala dul dhigay saasaan yeelaynaa qaata waxaad moodaa inaan nahay dad looma ooyaan oo aan ma aragtay cid danaynaysa aan lahayn goobihii caafimaadka hadii la waayay hadii waxbarashadii hadda isla bishan January gudaheeda la xirahayo iyadana oo ala iskuul 3 macallin bas lagu soo reebayo oo ard laga yaabo 1200 oo arday meesha ay joogtay la yiri 3 macallin bas lagu soo reebaya waxbarashadii sida ay khadka kaga baxdo caafimaadku uu sida khadka kaga baxay WFP raashinka ay yaraysay kaliya waxa soo haray 4 waxyaabood oo ku deganayn waa nabadgelyadii bas weeye nabadgelyana irsaaqad ma noqonayso dhinacyadii qusaysay ma kala hadasheen maxaad kala kulanteen waanu kala hadalay waa arinta waxa weeye waanu ka ergeynay waana laga qaadan waay amar waad qaadanaysaan baa la yiri waxa go'aanka annaga soo gaadhnay marka wadankii waxa la arkaa inaan wax safaarado noo doodaysa aan lahayn wax madaxweyne oo soo booqanaya aan lahayn wax wasiir oo noo imaanaya aan jirin marka wax dad iska looma ooyaan oo lagu tumanaya noqonay ma garad kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka gudoomiyaha xirada ifo xiriyaha qaxootiga Dhadhaab oo qadka telefoonka igu waramay isagoo ka hadlayay xarumo caafimaad oo ay sheegeen in la xiray kadib markii heedihii maamulayay ay sheegeen in ay arintaasi sii wada karin dhaqaale xumo awgeed markana Soomaalida ku nool magaalada Melbourne ee wadanka Australia ayaa walaac ka muujiyay dil la sheegay magaaladaasi lagu geystay sheekh Soomaali ah oo dadka magaaladaasi ay aad u yaqaaneen oo lagu magacaabi jiray Maxamed Nuur maxamed oo toori lagu dilay ayaa dilkiisa la sheegay inuu ka dambeeyay wiil dhalinyaro ah oo uu quraan saaray haddaba si aan wax badan uga ogaano dhacdadaasi ayaa waxaynu qadka telefoonka ee magaalada Melbourne ku wareysanay Dr. Xuseen Xarko oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee wadankaasi gaar ahaan magaaladaasi Melbourne waxaana uu waramay Kowthar Maxamed oo markii hore weydiisay qaabkay wax u dhaceen بعض يعني نحسن بدن أوقات وفجأة كده على الرياض ملبون من وضيئة أو
wadaadada ka tirsan oo maxamed nuur la yidhaahdo wuxuu tayareer soomaali ka mid ah oo uu qur-aanku akhrinayo wiilashooda ka mid ah marka wiilkii qur-aanka lagu akhrinayo ayaa maxamed halkaa ku dilay rag kalena ku dhaawacay waa run arrin ku cusub magaalada hore u dhicin waa arrin fajacna gelisay annagana ilaa haddeer magaalada ay la khilaadahay waa arrin yani oo ay magaalada la dhaxsan yihiin idinka yaa idin soo sheegay geeridiisa annaga isla markii telefoonaa nagu soo dhacay raggii meeshaa joogaana soo waco arrinta say u dhacda noo sheegay intay ka og yihiin marka maxay tahay sababta loo dilay wallahi sababta ilaa haddeer ma cadda guriga wuxuu u tagay inuu ninkaa dhalinyarada uu qur-aan saaro sida dhaqankeena caadada ay tahay yani qof hadduu xanuunsan yahay qur-aan la saaro laakiin xanuunkan la ogeen inuu ahaa xanuun iska caadi ahay nin yani arrimo kale xanuunkiisa la xiriiraan oo dhibaatooyin kale yani hore u haysteen marka lama garan kara ilaa haddeer laakiin inuu mindi soo qaato oo maxamed uu mindida ku duray uu ku dilay meesha ka cad ilaa haddeer siduu naloo sheegay isagana halkaa laga wado la xiray sababta kaleftay hore ma aqoon calaamad kama dhexeen wax kaloo meesha jiran ma jirin waa arrin nagu cusub oo cajiib ah goobta lagu dilay bal sharaxaad inaga sii sida hadda sheekada nagu soo gaartay waa guriga yarka uu deganaa ma ahayn waa guri ay yani qaraawadiisa ay leeyihiin halka uu qur-aanka lagu saarayo waa magaalada bartamaheeda meel ay xaafad soomaalida ku badan yihiin marka halkaasay tageen nimankii wadaadada ahaa si yarka ay qur-aanka ku saaraan markaas halkaas arrinta ka dhacda bal qofka dilayna qof siduu ahaa qofka ma garanayno inuu xanuun maskaxda uu qabay in kale laakiin sida sheekada ku socoto waxay u badan tahay inuu xanuun maskaxda qabay laakiin adna ma ogeen marka xanuuno noocaas hadday jiraan qofka qur-aan keliya uma baahna marka hore wuxuu u baahan yahay dhakhtar iyo arrimihiisa in la daraasaad lagu sameeyo laakiin anaga dhaqankeena waxa waaye waa kalsoonida jirta awgeedii ay nimanka wadaadada u tageen meesha isku dayeen inay qur-aan ku akhriyaan marka taasaana dhacday wadaadka la dilay kaalin noocee ayuu kaga jiray bulshada ma qof u dhaxeeyo bulshada oo la yaqaanay oo dadka qur-aan saarayay ba mise waa nin caan ah oo la yaqaano maxamed wuxuu ahaa nin akhyaar ah oo magaalada aad u xishmeyso aad loo jecel yahay oo qiimo weyn ay community ugu fadhiyo dhexgalkiisa iyo wanaagiisa iyo macrifadiisa aad u dheereyso inkastuusan muddo badan joogin waddanka badda uu soo galay laakiin wuxuu ahaa nin magaalada akhyaarta aad loo ixtiraamo wuxuu ka tirsanaa wadaadada wuxuu kamid ahaa wadaadada dadka qur-aanka saaro wuxuu kamid ahaa ku biira hadda guddiga u qaabilsan qowraha dadka markay dhintaan markii la aasay qowraha maamulka qowraha oo xilsaarnaa oo ku biiray guddiga wuxuu ahaa nin yani mas-uuliyaddaas oo dhan haya oo akhyaar oo magaalada sharaf ku lahaa marka dadka soomaalida ah ee degan magaalada Melbourne arrintan qaabkee bay uga falceliyeen wallahi runtii dadka aad ugu xumaadeen hadda telefoonada igu soo dhacay maanta dhan wax la yani aysan malaysan karin ayaa waxay ku leeyihiin shalayto aan salaadii cishaha la dugtay mid ku dhaho salaadii maqrib aan shalay la dugtay nin dariskiisa oo dhahayo wiilkayga oo lix jir ah shalay uu arkay maanta markaan u sheegay uu dhintay uu naxay marka arrimo runtii aad yani shacabka aysan fileen runtii lama fileen wax lama filaan oo yani ku naqatay yani fajac ilaa iyo hadda wax tallaabo ah oo la qaaday ma jiraan booliiska talaabo qaaday way ku xiray ragii kale meesha joogeen ilaa hadda waraysi ku socda booliiska markaan ka soo tagno idinka ka jaaliyad ahaan maxay idin qorshaysan talaabada ugu horeysa waa horta waa inaan midkiisa helnaa kadib aan aasnaa kadibna waxay dhacay dabagal aan u sameyno aan u ogaano arrimaha jiro haddii yarkaan uu xanuunsan yahay inaan yani waxaan la qaban karna aan la qabano iyo arrimaha maalmahan kusoo badanaya soomaaliya dhinaca mental illnesska isagana maanta dhalisay inay dadka o dhan ka wada hadlaan arrimahaas mustaqbalka yani talaabooyin culus laga qaado ay noqonaysaa kaasi wuxuu ahaa doctor xuseen xarako oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Melbourne ee waddanka Australia waxa uu warramay Koothar Maxamed isagoo inooga warramayay wadaad Soomaaliya oo lagu dilay magaaladaasi halkaasi oo ku dilay wiil kale oo quraan saaraya markan haddii aynu si kooban u eegno ciyaarihii haatan waxaa socota ciyaar u dhaxaysa kooxaha Newcastle iyo Leicester Emery ayay maraysaa sidoo kale ciyaarta ku xigta waxay tahay mid aad ka looda sugayo ee markaas dhex mari doonto kooxaha Chelsea iyo Man City inkastoo kooxda Man City lagu soo warramay in ciyaaryahanada qaar ay ka maqan yihiin xanuunka corona awgeed dhanka kale tababaraha kooxdaasi Man City Pep Guardiola ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo inuu ku sii jiro ciyaaraha kubadda cagta ama tababarista ciyaartooyda kubadda cagta dhanka kala sareeyntana wali waxa ugu sareysa kooxda Liverpool inkastoo wali isku dhibcan yihiin kooxda kale ku soo xigta kaalinta labaad ku jirta ee Manchester United haatana dhageystayaal waxaan idinku wareejinayaa barnaamijkii mawjadaha baraaruga oo maalmahan oo kale aad ka dhageysataan BBC-da kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka mawjadaha baraaruga iyo toddobaadkan qodobada aan ku soo qaadi doono waxa ka mid ah ugu yaraan waa 21 maalmood qofkaas inta uu haynayo 21 maalmood marka cidda maxay cunaysaa
ilaan ayadaa biilaysay biilka cidda ayaa go-aya. waa aqoon-yahan aadan xasan maxamed oo ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha oo barnaamijkan inagala qaybgeli doono oo aan kaga hadlayno dhibaatada ganacsiga haweenka soo gaari karta haddii aanay haweenku qaadan tallaabooyinka ka hortagga cudurka COVID-19. waxa kale oo dhegaystayaal aanu idiin haynaa waxaad mooddaa inaan iminku ku soo baraarugay COVID-19 inuu dilaa yahay. markaa imika ma waxaad ka walwalaysaa inaad iga dhimato oo maxaan kaaga walwali carruurtayda ayaan u walwalayahay. waa maadayskii taliya tacab iyo jilayaashii oo maadays cusub inoola diyaara toddobaadkan. barnaamijkan idiin soo jeedin doona anigoo Safiya Ali Yusuf iyo Cabdillaahi Jaamac. وهاجا سفيا haddii aan bilowno barnaamijka toddobaadkan Xaawo Yuusuf waa haweeney ka mid ah ganacsatada Muqdisho oo waqtigan wali lagu guda jiro xanuunka COVID-19 ku dhaqanta tallaabooyinka ka hortagga iyadoo oo fahansan in uu cudurkani dalka aanu wali ka bixin halistiisuna ay taagan tahay siyaasi daraadeed waxa ay wali sii wada kala fogaanshihii dadka la faray iyo faraxalkii iyo iyadoo waliba afkeeda iyo sankeedaba daboosha marka ay gurigeeda joogto iyo goobteeda ganacsiga waxay ka taxadirtaa in xanuunkani u soo dhunto macaamiishana waxay kula talisaa in la qaato talooyinka wasaaradaha caafimaadka ay soo saaraan. Xaawa waxay ka mid tahay haweenka ku ganacsada suuqa Xmarweyne ee magaalada Muqdisho waxaa halkaasi kula kulantay wariye Raxma Xasan Maxamed oo magaalada Muqdisho joogta. laga soo bilaabo ilaa markii uu wadanku u soo galay cudurkan ee COVID-19 ilaa alaanigan runtii taxadar weyn ayaan dhankayga ka qabtaa ama gurigayga ama dadka ganacsiga igula jiro ee dukaanka igala shaqeeyo. runtii mar walbani naftaada ama nafta dadka kale aad la nooshahay ama dadka aad wax ka gadanaysidne in aad ka fikirtid waa ay wanaagsan tahay. goorma ayaad soo bilowday ku dhaqanka talooyinka caafimaad ee kahortagga corona? runtii waxaan soo bilaabay ilaa markii cudurkani oo wadanka u soo galay talooyinka caafimaadka ee aan dhageystay ee soo saartay wasaaradda caafimaadka ilaa hadda wadanka wali oo cudurku ku dambeeyo inkastoo oo sidoo hore ahayn waan ku dhaqmaa oo ilaa hadda talooyinkii caafimaad misleedahay haddii xanuunkan uu ku dhaco qof ka mid ah qoyskaaga in ganacsigaaga uu saameyn ku yeelan karo? runtii saameyn weyn ayuu ku yeelanayaa. guriga qof ka mid ah haddii uu qabto dadka dhan saameyn ayuu ku yeelanayaa. maxaad ka hortag ah oo aad samaysay marka aad joogto ganacsigaada? inta badan waxa ugu badan aan maanta qabto waxaa ka mid ah gacmaha inaan gloveska ku xirto, dhaqmo badan aan sameeyo kaleeto biyo kulul. sidee ku arkaan macaamiishaada markay ku arkaan adigoo wali taxadar ee corona muujinayo oo kaleeto waji xirkii waxyaabahaas oo kale markaa sameynayso kale? runtii horta dadka isku midka Ilaahay kama dhigin dad waxa laga yaabaa in ay kula yaabaan markaas oo kaleeto ay ku dhahaan maxaa cudurkii wadanku uu ka baxay waayadan maxaa u xiranaysaa waxyaabahaas oo kale. caqabado way jiraan dadka aan kala kulmo marka gloveska xiratid ama maaskiga ah xiratid oo qofkii israaba qofkan baa qabo cudurkii. Cabdillaahi waa ay mahadsantahay Xaawo Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho. waxa sheekadeeda ka duwan Sahra Maxamed Muuse oo ku magac dheer Sahra Macallin oo ah haweeney ganacsigu jirta waligeed kuma ay dhaqmin tallaabooyinka ka hortagga COVID-19. waxay ka ganacsataa dharka dib loo isticmaalo ee hudhaydhka loo yaqaano. ganacsigeeda koronaha aanay ka hortaggiisa ka feejignaynin saameyn ayuu ku leeyahay. waa tan Sahra oo ka waramaysa sababta aanay u qaadan tallaabooyinka ka hortagga. wariye Xaawo Axmed Maxamed oo joogta Garowe ayay u warantay. coronaviruskan waxaan ku yiraahdaa adduunka wuu saameeyay meel walba uu ka dhacay saasay tahay anigu af xidhka iyo gacmo xidhka iyo anigu waxa waaba ka soo horjeeda sababtay tahay Ilaahay baan aaminsan qofka hadduu Ilaahay isku xidhana waxba ma waayo waxa weeye ka soo saameeyay. haddana alxamdulillah rabbil caalamiin wixii Ilaahay keena waa lagu shukriyaa. kalooro intuu dhacay af ma aan xiran jirin waa arkay dad badan oo magaalada maraya afka xidha waana la yaabaa boqolkiiba boqol waan la yaabaa sababtay tahay anigu waxanba u arkaa inuu ii soo qabanayo cudurka dhanba af xidhkan inuu ii soo qabanayo waaba la yaabaa. hudhaygan oo ka ganacsadaa hudhaygana dadku waad aragtaa buufis buu ka qabaa waxa la leeyahay dadkii leeday baa waxan laga keenay waana iska ganacsanaayo Ilaahay waxba naguma keenin dhib iyo balaayo toona inaan anigu wax buufis ka qabin. dadka haday hudhay ka baqayaan wax saameyn ma ku yeelataa? maxay igu yeelan weydaa rag waa ii imanaya dharkay qaadayaan haday kuleetga in yaro dhibaato ku arkaan waxay ku leeyihiin waa kaloorihii saraawiisha ka daalid waxaan ku aad iyo aad bay buufis uga qabaan. marka sababta aad hadda run ku jeedayo ma xidhnid face mask gacmahaagina waa caadi oo agabkii ay sheegeen wasaaradda caafimaadka in la xidho ma aadan xidhan. sababta aad u diiday oo aadan rabin inaad xidhato maxay tahay? hooyo waxay tahay anigu Ilaahay baan aaminsanay mar laba Ilaahay baan isku xidhaa waxa weeyaan dhibaatana kamaan arag mana xidho mana hadarna uma diyaarsani
leedahay haddaad xidhatid faraha iyo afka kaa soo gaadhaya hadda ilaahay qadartiisa baan ka soo horjeedaa waxa weeye rabbi qaadirka wuxuu keenay waa lagu xamdiyaa dhibaatana kuma arag hadarna waa ka soo horjeedaa xirana maayo safiyaad bay u mahadsanyihiin xaawo yuusuf iyo saara macalin oo ahaa haween ganacsiyo yaryar ku jira oo kala joogay magaalooyinka muqdisho iyo garoowe haatan waxaa barnaamijka ku soo biray aqoon-yahan aadan xasan maxamed magaalada muqdisho isagoo jooga ayuu barnaamijka ka qaybgeli doonaa haddii aad dhegaysatay sheekooyinkii kala duwanaa ee haweenkii ganacsiga ku kala haystay labadaasi magaalo ee aan soo sheegnay ee mid ahaani ku dhaqanto ilaa hadda tallaabooyinka ka hortagga cudurka covid-19 ta kalena aanay weligeed ku dhaqmin maxaa adiga kaaga baxay marka laga hadlo waxaa waxay samaysay ka hortag sidiisabana haddii marba uu cudurku soo galo iyada wuxuu samaynayaa ganacsigeeda kaliya kuma ekaanayo dadkii ka ganacsada ayaa waxay sii gaarsiinayaan alaabta ka qaata dad kale dadkaas haddana dad kale sii gaarsiinaya waxna waa qadar rabbi sida ay sheegtay saara waa sax qadarta cilmi diidana aan leeyahay in laga hortago cudurka ayaa ka habboon in la daaweeyo adigoo alla aaminsanaya haddana waxaa la rabaa inaad samayso waayo hadduu hal mar qof ka mid ah oo adiga ku saameeyo gurigeyda saameynaya adiga shaqada ka jeedsanaya shaqada marka adiga ka jeedso cidda waxaa laga yaabaa sida ay sheegtay gabadha guud ay ka ganacsataa diilka cidda ay u geyn lahayd in la waayo ugu yaraan waa 21 maalmood qofkaas inta uu haynayo 21 maalmood marka cidda maxay cunaysaa ilan ayadaa diilaysay diilka cidda ayaa go-aya 21 maalmood maxaa lagu noolaana marka taas wuxuu keenaa dhaqaalihii qoyskaas soo geli jiray geli ahaan inuu burburo sidaas waxaa kaga habboon marka inay ka hortag samayso oo ay u hoggaansato awaamirta wasaaradda caafimaadka amaba iyadoo fiirinayso dhaqaalaha haddii cudurkan uu guriga soo galo dhibaatada gaarsiin karo soo qoyska saameynayo cudurkan waa cudur adduunka dhan nala qabo ka hortagga dalku ama dadka ay sameeyeen ayaa wuxuu yahay inta badan in loo hoggaansamo awaamirta wasaaradda caafimaadka ay bixiso ka dhaqaalayahan ahaan haweenka ganacsiga ku jira ee aad ku aragtaan suuqyada ee u badan dhulka Soomaalida wax tala ama siin lahaydeen waxaan sii lahay cudurkan haween malahan rag malahan dhammaan wuu saameeyay haddana Soomaaliya marka la joogo waxaan qabaa dadka ugu nugul ee cudurkan uu saameynta ku yeeshay waa haweenka waayo dadka ugu badan ee suuqyada markaa tagta ka ganacsado amaba ugu liitay ganacsiga ugu hooseeya joogo waa haweenka haddii waxaan qabaa ay sida maamada xawliska ay jiibsay hadday sameeyaan in uu yaraanayo taladan sidana marka waxay tahay in gebi ahaanba ay qaataan awaamirta wasaaradda caafimaadka ee bixisay si aysan cudurka guryaha u keenin si aysan iyagu naftikooda ugu dhicin si aysan dhaqaalaha guriga soo geli lahaayeen uusan u istaagin cabdilaahi waa u mahadsan yahay khabiirka barnaamijku waanan ku soo noqon doonaaye salaamu calaykum halow kabtan salaabaan nabada ay covid-19 maanta maxaanu halkan ku haynaa talow waa email uu la socdo sawirka soo dirihu aynu eegno waxa uu leeyahay kabtan Saleebaan waxaan doonayaa inaan kuu sheego saaxiibkay oo xafiiska igala shaqeeya ayaa iga joojiyay dhool cadayntii inkasta oo aan anigu weli u dhool cadeeyo maxaad filaysaa sababtu inay tahay saaxiibkay Shaakirow sawirkaaga waan ku arkaa inaad xidhan tahay afsaab taasi waxayna tusaysaa inaad tahay muwaadin wanaagsan oo ka shaqeynaya in aanu fidin cudurka coronavirus malaha taasi waa ta keentay inaanu saaxiibka arki karin dhool adiguna haddaad xidhan tahay afsaab sidoo kale lama arki karo dhoolla caddayntaada sidan darteed dhegaystayaal dhammaantiin xusuusnaada qof kasta oo xidhan afsaab waxa uu inoo sameeyey wanaag sababtoo ah coronavirus wuxuu ku faafaa dhibcaha afka qofka ka soo baxa marka uu hadlayo ama uu xitaa neefsado xidhashada afsaabku waxay sahlaysaa in aanu qofka cudurkaa qaba aanu faafin karin dadka caafimaadka qabana ay ka nabadgelayaan xanuunkan miyaydaan dareemaynin in codkaygu ka duwan yahay mararka kale waayo aniguba sidoo kale afsaab baan xidhanahay markaa xusuusnaada kabtan Saleebaan wuxuu idin leeyahay halow rajo bye bye covid-19 fariintan caafimaad waxay kaaga timi BBC Media Action iyadoo qaybka mashruuca isbahaysiga nadaafadda iyo beddelka dabeecadda oo ay taageerayaan xafiiska caawimaadka Ingiriiska iyo Unilever أمين عبد القني وانين تاجر سياحاسكيسا oo ku ganacsata mid kamida suuqyada magaalada Hargeysa waxyaabaha uu ka taageeray waxa kamida in ay ku dhaqanto tallaabooyinka ka hortagga COVID-19 oo aanay u qaadan inuu baxay cudurkani waa kan Amiin oo u waramaya Hooda Ilyas oo kula kulantay Hargeysa xiligan ay jirto xaaladda coronavirus ee dunida aadka u saameeyay waxaan talooyin dhanka caafimaadka oo
wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliya ay faafinaysay iyo dhanka kale warbaahintaba aadka looga faafinayay waxaan xagga ka taageeray xaaskayga oo iyadu haysta meherad ganacsi oo aan talooyin ka siiyey ku saabsan dhanka ganacsiga iyo sidoo kale dhanka caafimaadka tusaale ahaan haday noqoto in ay xirato gloveska si aan qoyska markay dibadda u baxdo ay dadkeen macaamil la samayso gurigaani dib ugu soo celinin oo baalkan afka lagu xiranayo ay soo xirato gloveski oo kale ay xirato qofkii wax ka iibsanayada oo tusaale ahaan miiskii iyadu wax ka iibsanaysay inay kursi ka sii horeysiiso oo u dhaxaynaysa qofkii 2 mitir kale ay u jirsan talooyinkaas kale aan ka siiyay dhanka lacag qabashada inkastoo dhanka elektrooniga iyo teknolojiyada wax lagu kala dirsado haddana marba jirta lacagta lagu bixiyo marka lacagta lagu bixiyo qudheeda iyada talooyin aad u sii dheeraadan ka siiyo ah inaanay ilaa intay ka soo baxayso xarunta ganacsi aanay gloveska aanay bixinin dad badan baa horta markii hore jiray oo iska dhiga marinay talooyinka caafimaad oo la xanuunkani ma jiro iminkana waxaad moodaa wacyigelin faraha badnaana in ay yaraadeen dadkiina ay aamineen oo iska dhaadhiciyeen in xanuunkii dhamaado dadkaas oo kale maxaad soo jeedin lahayd talada muhiimka ah ee aan u hayaa ayaa waxay tahay maadaama aafadana dalkeena uu soo galay dadkaas waxaan u soo jeedinayaa inay dhagaaday iska daayaan mahmaaba tiraadaa caduur weli dhowdhowdu ma dhicin talooyinka caafimaadka sidina u qaata Safiyay Amiin Cabdiqani oo jooga Hargeysa aad buu mahadsan yahay haatan aan wada dhageysano dhinaca culimada iyo diinta islaamku waxay ka qabto in aanu qofku dhayalsan asbaabta marka ay timaado cudurro faafaya sheekha toddobaadkan barnaamijka martida inoogu ahi waa Sheekh Cabdallah Maxamed Ibrahim oo ah madaxa jamciyadda Ar-Rahma Al-Khayriya oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa gobolada Soomaaliland ka hawlgasha diinteena walaal waxa diin Ar-Rahma waa diin hadii la idmaayo inagu buurisay in naftaada ilaaliso mujtamaca naftoodana aad ilaaliso deegaankii naftiisana aad ilaaliso dalka aad ku nooshahay in mas'uul ka saarto inaad ilaaliso cudurkan in aafeeyay waa cudur daleed maayo inoo diiday isu imaadkii wada shaqayntii wax wada cunkii wada sheekayskii dhinac walba inaga naafiyay dhinac walba wuxuu yiri kala durka hayso imanina dusha iska salaama salaamu calaykum sidaa gacmaha hay saarina marka walaal waxaan leeyahay diinteenu sharafta leh waxa leeyaan waxay qiimeysay in ay qofka naftiisa ilaaliso oo naftaada aad u ilaaliso oo wax alla wixii mudarro keenay naftaada mudarro ku keenaya dhinacu doonaba ha ahaadee inaad hadii la idmayo aad iska ilaaliso oo ka joogsato waa tahay Sheekh Cabdallah waxa jirta oo ogtahay badda suuqyadeena iyo wadanka oo dhan iyo guud ahaan dhulka Soomaalida iyo xataa Soomaalida dibadaha joogtay wadamada aadkana oo dadka walaayay joogtay waxa la soo sheegayaa dadka Soomaalidu inay yihiin kuwa ugu dhayalsiga badan ee xanuunada noocan oo kala talooyinkii la siiyay aan qaadanin ilaa imikana xanuunkii wadanka uga jira oo meel uu ku baxay oo la sheegay ma jirto mar walbana khatartiisi way jirtaa waana la sheegaa dad u soo dhacay taas oo kale waxaan oranaynaa mujtamaceenu marka cudur la sheego dhayilsi baa jira wax dhayilsi la yiraahdo jira laakiin si marka qofku uu ama yahay qof islaama waa inuu qaayad qaataa waayo waxa qofka islaamka waxa lagu leeyahay naftaada horta marka hore ilaali qofka naftiisa waa inuu daweeyo hadduu xanuunsan dhakhtar taga naftiisa oo caafimaad qabta ayuu cibaadaysan karaa naftiisa oo caafimaad qabta ayuu qabsan karaa naftiisa oo caafimaad qabta dadka wax u tari karaa naftiisa oo caafimaad qabta ayuu mujtamaca wax ugu biirin karaa marka diinta islaamku intaa waa ilaalisay marka intaa ay ilaalisay waxa la doonayaa qof caafimaad qaba oo qawiya oo mujtamac ku beerin kara oo tiisa iyo takala daryeeli kara marka dadkeenu dhiga adayga in ay haday dibad joogan iyo haday guud jooganba waxaan ka waanaynaa in isla diinta islaamka aan taaqabin Cabdullaahi oo aad ayuu u mahadsan yahay Sheekh Cabdallah Ibrahim Maxamed magaalada Hargeysa ayaa uu joogay haatan aan dib ugu laabto khabiirka barnaamijka Aadan Xasan Maxamuud oo cilmiga dhaqaalaha bartay si uu uga jawaabo su'aalaha ay dhageystayaashu ina soo weydiiyeen dhageystaani waa Badri Cabdullaahi Maxamuud wuxuu joogaa wuxuu leeyahay khabiirka dhaqaale waxaan weydiinayaa haweenka ganacsatada ee Soomaalidu badankoodu waxa aad moodaa inaanay u dhagan wulayn qaadashada talooyinka koortaga cudurka COVID-19 inta badan ma dhageystaan wacyigelinaha socda ama idaacadaha ka socdaan ama meel kale ka socdaan marka khabiirka waxaan weydiinayaa buu yiri dhibaataynta leeg baa soo gaari karta haddii dhaqaalaha haweenku kuududsado ama uu fadhiid noqdo isagoo ka dhashay taasina ka taxadar la'aanta cudurrada faafa sida kan oo kale marba haddii ka taxadar la'aan ay imaado oo cudurkiiba uu meesha soo galo waxaa imaanaya burbur dhaqaale maxaa sababayo qofkii aan ka taxadirin cudurkan ayaa si fudud waxaa ugu soo gudbaayo cudurkii oo adduunyada ku faafay
cudurku markuu usoo gudbo qofkii uu xanuunsanaya reerkii buu kula laabanaya haddana ma taxadiraya markuu reerka ku laabto hergaba ahayo leey gurigii oo dhan uu saameynaya waxaa halkaas ku istaagayo ama fadhiisanayo dakligii ama mishaarkii ama dhaqaalihii kasoo geligay alyoomka ahay ee maalinlaha ahay taasi ay keenaysaa in guri ahaanba qofku kiradii koronto iyo biri iska bixi waayo taasna ay dhaqaalihii ama ganacsiga qofka uu waday oo totally oo ku burburo jaamac maxamuud xirsi wuxuu joogaa degmada gaashaamo kilika shanaad ee wadanka Itoobiya gaar ahaan tuulada la Kambarwaaqo waxaan weydiinayaa buu yiri waa iska caddahay in haween badani aanay ku dhaqmin buu yiri talaabooyinka ka hortagga COVID-19 taasi ma keeni karaysaa buu yiri in macaamiishii ka yaraato haweeneyda aan qaadan talooyinka oo ay macaamiishu u badato haweeneyda qaadata ku dhaqanka talaabooyinka ka hortagga COVID-19 faktor ahaantii Soomaalidu badankood markaa fiiriso dadka awaamirta u hoggaansan waa yihiin sida xaawo kale laakiin haddana markaa fiiriso dhanka kale dhaqaale ahaan markaa fiiriso qofku aadaya qofkan ilkiisa nadiifka yihiin wuxuu isleeyahay qofkana xoogaa nadaafad roon waa laga yaabaa inuu dhaqdo cudurka xataa qofkan waa gacmaha wax ka gashatay sankii wax ka gashatay waa laga yaabaa marka dhanka kale inay aadaan waa laga yaabaa laakiin haddii halkaas weydiinayno sida caqligalka ah laba qof oo midna talaabooyinkii ka hortagga qaatay midna aanu qaadan caqliyadu maxayna siinaysaa kee in la dhaqmo horta haddii markaan ka hadalno haddii sida aragtay waajib baa laga dhigay kii noogu dhow kale qofkii aan wadin waxaa la yidhi $50 oo ganaaxa laakiin Soomaaliya iyo wadamo kale oo bina laga dhigay qofka asaa khiyaar laga siiyey Soomaaliya haddaa imaano caqliyadu waxay siinaysaa in dadka inta badan ee wax fahansan ee dijidka ay wax bartay ay aadayaan qofka awaamirta u hoggaansan oo sameeyay fishmas gacmihi xirtay injiga xirtay qofkaasi aadayaan laakiin dadka edelba sida jaaro kala ahayo waxaan ka aaminsanahay inay yihiin wixii cudurka wadaba inay yihiin ayaga ay aadayaan qofkaan aadayaan qofka xatay injiga xirtay dowladooda ay ka baxayaan waxay leeyihiin na qofkaan aan anfacayo aadayna aad waa santahay su'aasha ugu dambaysa xasan xuseen xasan wuxuu joogaa Cadaado waxa uu la weydiinayaa waa maxay talaabooyinka muhiimka ah ee loo baahan yahay inay qaadaan haweenka ganacsiga ku jira si ay isaga ilaaliyaan khatarta fayraska coronavirus ee weli jira taasi waa saacadahay wasaaradda caafimaadka hore u bixisay talaabooyinka ugu muhiimsan waa kuwa inay u hoggaansamaan wasaaradda caafimaadka waxa ay bixisay awaamirteeda waxaa kaloo hadda jiro inay isticmaali karaan gacmo ku samays waxa haddii ay agabka ay samaysan waxyaala gacmaha ay ku samaysan ay isticmaali karaan cabdilaahi aad ayaad u mahadsantihiin adiga dhaqaalayahanka iyo dhegaystayaashuba toddobaadka dambena haddii eebba idmo sidan oo kale ayaynu khabiir u bandhigi doonaa weydiimaha dhegaystayaasha barnaamijka mawjadaha baraaruga ayay dhegaystayaashu la socdaan oo BBC Media Action diyaarisay laanta afka Soomaaliga ee BBC-dana waa ay ka dhegaysanayaan haatan waxa aynu soo gaadhnay waqtigii aan wada dhegaysan lahayn maadayskii talo iyo tacab waa kuwan jilayaashii maadaysku السلام عليكم ولا المريم ساكم حال الشيء ولا الياسمي ولا وعيه adigu maxaad sheegtay alxamdulillah walaal wacnaan saaka shaqadii dawad ka habsaad ha walaal hooyan yar caawinayay de shaqo badan ma jirto waan iska soo habsaama waa runtaa walaalo ma shaqaa jirta waan iska dhex fadhinaa markuu darisku adeegto maryanay inagu wali waan isdhiibi laanahay ee ganacsiyo badan waaba xidhmeenba waa run laakiin waa wax laga baxayo isdhiibi mayno ha xaalado ka adag ayaan isdhiibi weynay laakiin maryanay midun baa iga tala ah maxay tahay taladaasi waa inaanu qaadnaa talaabooyinka ka hortagga waayo badbaadada nafteena ayaa ka horeysa ganacsi waa siday tahay waliba inagu maalin walba dad kala duwan baynu la kulannaa waa inaynu islaalinaa waad og tahay in dadkeenni socdaan oo madiinaba maanta way naga hoosaysaa innaa lillaah walaalo gabadhaa wanaaggeedii markaad xasuusto waan ooyaa haa walaal ilaahay ha u naxariistee ilaahay karoona ayuu ku sababa yaasmini halkaa waxaad ka ogaanaysaa cudurkani siduu u fidayo iyo sidaa fudud inuu dadka u dili karo haa walaal bal qoyskii madiina iga waran xaalkoodu waa sidee adigaa jaar laahaaye ayagiyow washeega maanta waxa hoosta iska kiingeliyey isirey soo nagaa labadii mitir isku jirna bal fadhiiso isirey oo adiguna naga fogow inaynu tallaabooyinka ka hortagga COVID-19 qaadanno waa wax inoo wanaagsane bal ii warrama maxaa sheegteen wanaag baa la sheegay geeridii madiina oo waran nagu noqotay ayaanu ka sheekaynayna allahay xasuusinina geeridaas aad baan uga naxay gabadhaa geerideeda qof kasta oo maalinuun arkay wuu ka naxay walaal dhagaysta horta qarashkii geeridu waa mid madaxiina saaran waa waajibina saaran dhammaanteen waan bixiyey lacagta anigu maalintiiba rugta ganacsi ahaan waxaanu bixinay lacagtii dhakhtarka lacagtii kalena waan soo ururiyey waxaan doonayay inay la qorshaystaan lacagta inta soo hadhay ka warrama haddaan reerkii u geyno aynu ku wareejinno maryan iyadu ha u geysay
haye maana iska warantaada ma aqaani joog bal gabriye meeshaada ha soo dhaaf. waa maxay joogto maxaa kugu dhacay waabad cadhaysan tahay meeshaada joog aan ku dhahay amba iska noqo xageen ku noqdaa maana maxaa ku helay adoo ayaantaan dhan iska maqnaa aaba waxa keentay ina afsaab la'aan dukaanka soo gashid waxaaban islaamaana cid kale kugu dirtee ma afsaab umad ka hadlaysaa maxaa uga hadli waaye waa ogtahay cudurka dadka dilooye ilaa inta dukaanka dhex fadhiday waxba lama socotid dukaankan waabu ku reebaba waxaa la soconin maa lahee qof yahay gadaal iiga dig imikaaban soo dhawaanaya yaday joog karoona dheel ma galayaa naamaana wax ma kuu sheega haddaad leeda dukaankayga bax waan kuu dhaafaya haddaad karoonii COVID-19 ka hadlaysidna wuu dhammaaday cudurkaasi anigu waxaan kugu haysta waxaa waaye afsaab iyo galoofis midna ma wadatid cudurna waa dhammaaday adaanba kaa maqlooya intaad halkan fadhiday buu daaqada ka baxay cuduraa baxay ani maba maqal intee ka keentay adi warkaas anigaa kuu hayee dadkan cadibi macaamiisha cadibaad ma ahine aniga waxaan rabaa naftayda iyo ganacsigayga inaan badbaadsho markaas waxaan rabaa inaan raaco tallaabo kasta oo COVID-19 looga hortegaayo balaayaad saadaalinaysaa ee nagu soo celin COVID-19 madax adaygaa ka batay orod iska bax gurigaaga aad maanta waan ku bartay maxay igu baratay maalmahan sameynaan arag waxaaban islaaway ku soo dhaweynaysaa intaan ka badana ilaahay amarkii macaydintan baa soo dhaweyn u taqaana hodaney karoona aan iska ilaalino soo dhaweyn maahino markaan kulaayo waad habsaantay waa iska sidan oo kale marba haddaad sidan u cabsanaysid iska xidh carwadan ganacsiga maxaan u xidhaa ka hortag leen wadnaaye iminka maanada guleeda COVID-19 kuma hortegaysid saas le ma ookay adi inaad qaadato waano aanan adkayn oo naxadintaa taagan ubay gooriya ayaan warar ku sheegaya iska waran waa khayre soo gal maalin walba karoonihii madacadda dhegayso kuu ganaa ikraan hooyo soo fadhiiso waaba sii baktiinaya xilliga kula halkaad ka timi ma meheradii mise guriga hooyo ma meheradan ka imaadaaba jirta walaaca iigu weyni waa inay meheradii macaamiishii ka yaraatay say madiina u geeriyootay ikraanay wixii wacyigelinahaa ee tacabkii aad ogeydin naga galay waxaad moodaa inay meheradaadii ka aradan tahay hooyo maxaan yaraystay meel walba warqad baan ku dhajiyey subax walba iyo habeen kastana khudbad joogtaaba ii hayda ikraanay wixii wacyigelinaa aynu ku jirnay inaanay dadku saanay u qaadan waxa kuu caddaynaysa shaqaalahaagii ayaaba u geeriyooday dadkuna taa mas-uuliyaddooda aday wax kaa saaraya in dayac iyo wax sheeglaan ay u dhimatay bay u qaateen waase inaad imika wax weyn ka beddesho dukaankaaga hooyo waa qadar alla lama dhaafi karo manaan yaraysan wuxuu sheega shaqaalaha meherada iminkana waxaad u baahan tahay inaad xoog u joogtayso oo aanad marnaba caajisin maxaan joogteeye hooyo meherada waa inaan xidho waayo macaamiisha way ka baqanayaan maadaama cudurkan u dhintay qof shaqaalaha ka mid xidho dukaan la xidhayaa ma jirtee balse arrintaasi waxay u baahan tahay in bulshada laga wacyigeliyo haddii dukaankii laydhaa qof ayaa ka xanuunsaday ama ka dhintay la xidho soo dadku ka yaaci maayaan wallaahi hooyo dadku aad waxu maqli maayaane balse ka daadi mayno xusheegooda horta hooyo miyaad ogtahay aabba inuu baadiyaha aaday miyi oo hooyo muxuu miyigana ka doonay hooyo adeera ayaa xanuunsan baa la dhahay ma adeerkaa haa siduu aabba ii sheegay waa loo yeedhay talomaad buu u xanuunsanayaa haa aad buu u liitaa baa la salaamaad oo hooyo maxaa xanuunkiisa lagu sheegay ma cudurkii la sheegaya baa miyigiina gaadhay xanuunkiisu wuxuu yahay lama soo sheegin balse aabbaa ka soo warrami doona xaaladiisa allaha ka kixiya xanuunka oo caafimaad taam aha siiyo aamiin hooyo allaha u aqbalo wallaahi waaban ka naxay hadduu kolkaa adeerkaa xanuunsaday aabbahaana miyigaasuu joogaya soo maaha hooyo cabdiyow koobkaa ii soo dhiib aan biyo ku shubtee bal anigana igu shubcaa oo cashadii waaban kaa boobay anigaan casho u jeedine igamaad boobteen ma wax hore ayaad cuntay may casho uma jeedo maalmahan walwal ayaa igu jira maxaad ka walwalsan tahay waxaad mooddaa inaan imikuun ku soo baraarugay COVID-19 inuu dilaa yahay markaa iminka ma waxaad ka walwalaysaa inaad iga dhimato oo maxaan kaaga walwali carruurtayda ayaan u walwalayahay oo waayo aniga ariga tag adigu soo ninuun ma tihid haddaa maxaan ahay maalintaan sidaa u dhinto ayaad naa kala guursanaysaa ma adigaa ii joojinaya laakiin anigu carruurtaydaan u baqayaa inay hooyolaan dareemaan salaamaad waa maxay halkanaad ila gashay ilaahay igama kaa qaadee aamiin ilaahay inama kala qaado ka warran haddaynu gurigeenna iska fadhinno ilaan maanta lacag la'aan ka welweli mayno waynu haysannaa lacag inagu filani waarun waynu haysannaa laakiin tacabkeenna ma dib baynu u cunnaa inta cudurkani inaga dhammaanayo waxaynu kaydsannay ayaynu iska cunaynaa taasi ma soconaysa cabdiyowe ha ku fikirin maxaa diidaya COVID-19 ayaynu ka baxsanaynaa waar sidaa cudurka lagagama baxsadee wax kala sheeg ninkaagani maryanay anigu waxaan ku odhan lahaa dukaanka aan iska xidhno sitiqabax qadiijo warsame wuxuu yidhi aan dukaanka xidhno waar sabab lagu qanci karana ma hayside aniga maad dhegaysan haye balwad
cabdiyo waxaan ku jirnaa waa ganacsi haddaan maanta xidho suuqa waan ka baxayaa hadhowna way adkaanaysaa inaan ka soo kabto ganacsiga iyo badbaadadeenna waa midkii balarta cabdiyo istaji waxa aan kuu sheegayaa waa run oo waan isilaaliyaa ma sabab kaloon ganacsiga u xidho ayaa jirta maryanay ganacsiga waad xidhaysaa ma madiine ayaad ka wanaagsan tahay ma sheekadii berigii ee dukaanka xidh ayaad soo celisay aan runta isu sheegno runtaad ii sheegaysaa waa maxay maryanay cudurka saamayntiisa waad arkaysaa natiijadiisana waad ka dheragsan tahay sidaa awgeed waa muhiim inaynu ganacsiga hakinay intay wax isbeddelayaan cabdiyo waad ogtay ganacsigu inuu nolosheenna wax ka beddelay iyo halkaan ka soo bilownay maanta ma waxaad rabtaa inaad dib inoo celiso may dib inoo celin maayo laakiin nafteenna ayaan badbaadinaya adoo naf badbaadi isleh soo geeridu ma iman karto waa runtaa laakiin aqalkeenna aan isku dhowrno qadarka carar baa tahee rabbi ku kalsoonow sidaad u hadlaysaa maryan ma in lays ilaaliyo ayaa qadarka carara anigoo ganacsigayga haysta ayaan karoone balaayadiisa iyo baaskiisaba iska ilaalinaya ilaahay haynaga hayee maryanay sidaad isaga ilaalinaysaa cudurkan ilan waa ka albaab walba taagani cabdiyo waxaad ii sheegtaa waxa ku jaban haddaan aniga iyo macaamiishaduba ku dhaqanno tallaabooyinka ka hortagga COVID-19 hooyo qadadan cun yaasmiin bas dee hooyo waad igu badisay ma inta yar baad cuni karin waa 2 malqacdood oo kaliya lama sin xigan dhan baad leedahay waa 2 malqacdood oo kaliya haade waxaad xasuusisay sidii markii aad yarayd aan ku oran jiray cuntada hooyo waad yar tahay waad koraysaa astaghfirullah oo aday imka carruurnimadi ku laabtay bismillah muhiima waa tabtaa hooyo waad iga qoslisay maanta kol haddii waayee la sii noqdo waa la carruuroobayaa soo maaha dunidaa sidaa hooyo dunidii makaabay ugu darantao xanuunaan dawa loo helin nisaa ugu meeraysanaya COVID-19 soo maaha waa laga yaaban yahay xanuunka dhimasho daayo dhaqaalihii buu dhulka la galay adigu ku dadaal si allaala sidii aad uga hortagi lahayd aafadan karoonuhu inaanu dhaqaalaha inaga soo gelin insha allah hooyo waan xafidsanahay tallaabooyinka ka hortagga COVID-19 weliba yaasmiinay hooyo raadi nin xilliganada kaa caawiya shaqadan ganacsiga muxuu ninku qabanayaa maxaanu qabanayn mataasaa la isweydiiyaa ma guur baad ka hadlaysaa hooyo aabbo saxmad badan baa jirtay dadku xagee ka soo dareeran caawa kolle xilligan danaa loo soo wadabaxaye waxaan ku weydiiyey maxaad la lugaynaysaayoo gaadhigaaga ku dhacay aabbo caafimaad ahaanna waan u lugaynayaa shidaalkana dan reerkanu medxinaya waayo waa tan wax walba isbedelan aabbo waa saxsan tahay wax walba uu saameeyey ganacsiga ugu darnaadee soo ma ogid aabbo waxyeelle aad u ballaadhan buu gaadhsiiyey ganacsigii magaaladeena toosan haye iiga waran ganacsigii igraan halkee wax la maraya aabbo meheraddu way xidhan tahay oo maxaa dhacayoo meheradda xidhay aabbo sidii ay madiine u geriyootay dadkii waabay ka baqeen meheraddiina wax ka iibsadaan geeridu waa xaaqe ma qof kaloo meheradda ka shaqeeyey weydey miyaana shaqaale kala joogin meheradda maya way joogaane dadkiiba cabsi baa ka gashay meheraddii maadaama inantii hore madiine u geeriyootay xanuunkan COVID-19 salaamaad oo dabadeed imka meheradda way xidhan tahay haa aabbo aad baabay uga niya jabsanayd ikraan sawdiga arkay ganacsigeennii dhismahaba siduu saamaynba aan ugu yeeshay qalab kasta oo wax lagu dhis lahaaba aabbo u qaaligaroobay qaarkoodna maba yaalaanba shirkadihii hoos u dhac ballaadhan oo dhaqaale ayaa soo food saaray waa runtaa aabbe insha allah waynu ka soo kaban doonaa marka ilaahay xanuunka inaga kor qaado ciidamka alleh balse faaraxoo aabba raac talada iyo tusaalaha bahda caafimaadka oo ilaali badqabka naftaada iyo qoyskaagaba waayahay aabba waan dadaali doonaa insha allahna waan libilaabi doonaa waa si wanaagsan maxaad kaloo haysaa bal soo daa warka aabbo war kale ma jire waxaan kaa codsan lahayn haddii aad dhaqaale heli karto inaad ikraan ku caawiso si ay sare ugu soo qaado ganacsigaygan hoosudhacugu ugu yimid faaraxo miyaad ilowday in sododaa isra ay ganacsato weyn tahay oo weliba deegaankeena ay ugu jeeb weyn tahay aad buu mahadsan yihiin jilayaasha maaliiska taliya tacab haddii eebba idmo toddobaadka dambe maaliis kale ayay inoo hayaan dhegaystayaale hawdayma la'aanina safiyahay gunaanadkii barnaamijka aynu soo gaadhnay haddii dhegaystayaasha aan la wadaago toddobaadka soo aadan qodobka aynu barnaamijkeenna ku soo qaadi doono waa muhiimadda ganacsiga haweenka ay u leedahay inay aqbalaan in cudurka COVID-19 uu weli jiro inkastoo xayiraadihii la dabciyey wixii aad dhegaystayaal su-aal u haysaan khabiirada ah nagula wadaaga bartaan facebooka ku leenahay BBC Media Action Somali idinkoo barnaamijkanna mar kale halkaasi ka dhagaysan karaya barnaamijkii mawjadaha baraarugu dhegaystayaal toddobaadkan intaasi ha inoo joogo waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano norer toddobaadka dambe haddii eebba idmo inta ka horraysa waa cabdulaahi jaamac iyo safiya cali yuusuf oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadeed cabdulaahi safiya aad bay u mahadsan yihiin dhegaystayaal barnaamijkii dunida iyo maanta oo ay si wada jira u soo saareen axmed mursal iyo
كوثر محمد أنا بشير محمد عتان إذا لسعودسيني أنت يكون يجيهاي هدو أي بيد مو مالنت بريتا تدبدا رورنمو أنت أنا مركل هود دب وكل مدونه ودمانتي دو سكوت دوبن ودمانتي ندله سداسين نبتقليه